Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka dhici doonto doorasho sida caadiga ah. Soomaaliya afartii sanaba mar ayay ka dhacdaa doorasho. Ama dooda ah dalkan afartii sanaba mar inuu doorasho galo. Doorasho dadka intooda badan haddaanay kulligood isla ogoleen intooda badan isla ogol yihiin stakeholderska waddanka badankooda dhan ama kulligood ay qayb ka yihiin. Doorashaha ayaa ka dhici jirta waddanka noocay rabtaba ahaato waana waxana siiyey legitimacy dalka inay doorasho ka dhacdo ayaa ka muhiimsan inta kale. Macnaheedu waxay tahay in qof walba inuu ku dhaco dareen ah in afartii sanaba dalkan doorasho ka dhacaa inaan ku fikirno oodna ogaataan laga bilaabo maanta in shaqadeennu ay noqon doonto inaan isku dayno dalkan sidaan u gaarsiin lahayn doorasho ummadda Soomaaliyeed u dhan tahay xasiloon nabad ah dadku ay qayb ka noqdaan qaybaad ka noqonaysaan halkaanaan ugu doodi doonaa. Boqolaal Soomaali ah oo laga soo tarxilay dalka Sacuudiga ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa ku xeeryarnaa xabsiyo ku yaala dalka Sacuudiga ayaana ka codsaday dowladda Soomaaliya in ay dalkooda dib u celiyaan. Tarxiilayaashan ayaa qaybtii saddexaad maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde. Weli waxaa ka socda dalka Mareykanka magaalooyinkiisa waaweyn bannaanbax lagu soo horjeedo dilkii loo geystay nin madow ah oo lagu magacaabo George Floyd, kaasi oo dilay nin booliis ah asiga oo ku dhawaaqayay ma neefsan karo. Bannaanbaxayaashan ayaa ku dhawaaqay I cannot breathe oo macnaheedu yahay ma neefsan. Dulqaad media weli Cabdinaasir Maxamed Xaaji Axmed oo Juufa Freelance Journalist.